السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني noloshani waa habba mar walbaba wax cusub ina inta baratid kadibna aad ka qalin jabisid noloshu ma dhamaato ilaa aad wax ka baranaysid markii lagu dhahayo wax baa bilaabaysa waxaasi way kugu cusub yihiin markii ay kugu cusub yihiin ilaa aad baratid ma dhaqaaji kartid tusaale ahaan videogan waxaan ugu hadli doonaa anigoo isbarbar dhigaya guurka iyo gaariga sida isku soo shabahaan maanta hadaad marwo tahay ama mudana tahay oo aad aqal leedahay aqalka waxaan ka wadaa ay marwo ku dhaxayso ama mudana aad isku dhaxaysaan hadii aad ka fikiraysid kaliya inaad gurigaasi mudana ka tahay ama marwo ka tahay ee aad wax kale ka fikirin way adkaanaysaa in isfahan meeshaasi uu ka yimaado horta waxaan ku xasuusinayaa dunidani lamaano walba ee ka jira ee luqad walba ku hadla ama diin walba ku haysta waa soo dhaxgalaan isfahan waayo ninka iyo haweeneyda waa kala fikir duwan yihiin kala maskax duwan yihiin kala ra'yi duwan yihiin kala aragti duwan yihiin taasina waxay sababaysaa labada qof inay isqabtaan isqabashadu ma aha wax gooni idinku ah ama ha joogta ha ahaato ama yeysan ahaanin laakiin waxa muhiimku uu yahay oo qofka la rabaa inuu mar walba ka fikiro isqabasho way timid sidee lagu xalli karaa haddaad mar walbaba aad ka fikiraysid isqabashada way sii badanaysaa laakiin mar walba waxa aad ku dadaashaa dhibaatadan iyo isqabashada inaad bilaadanka kala samantihiin oo laba qof walba isqabtaba ay isfahan waa soo dhaxgalayso sababtuna ay tahay kala duwanaanshaha labada qof mar walba waxa aad ku dadaashaan inaad ka fikirtaan xalka waa sidee waxaan ku xasuusinayaa maanta haddii furo lagu dhiibo gaari ee lagu yiraahdo gaarigan kaxay ee aadan weligaa hore gaari usoo kaxaynin way adkaanaysaa gaarigaasi inaad meesha ka dhaqaajisid oo aad meel kala geysid waayo weligaa maadan soo dhaqaajin guurkuna waa sidaas oo kale haddaad hore usoo guursan xitaa haddaad soo guursatay ee waxyaabo badan kaa soo qaldameen weli bila aadan baato waxyaabo way qaldamayaan si aysan qalad ku imaanin waa inaad marka hore barataa waxaa laga yaabaa waalidkan keliya inayna soo dhaheen gurigaa ka adkow haddii maanta mudanaha lagu yiraahdo gurigaa ka adkow oo isdariinsiyo gurigu inuu asiga keliya mas-uul ka yahay ama asiga keliya in wax laga maqlayo way adkaanaysaa marwadiisa si ku fahanto haddii marwada lagu soo dhaho gurigaaga ka adkow oo qof iska adag noqo way adkaanaysaa sida ay isku fahmaan wiilka familkiisa iyo wiilkaba waayo wax baa ku qufulan marka sayse taas u dhicin waxaan ku xasuusinayaa maanta haddii lagu yiraahdo gaarigan kaxay oo aad gaariga furaha ku rogtid uu geer ku jiro ama marsho ku jirto gaarigaas waa boodaya wuu damayaa marka adiga haddii kugu jirto gurigaan adaa mas-uul ku ah mar walba aad kaxaynaysidbo oo aad ratid keligaa inaad kaxaysid hore u dhaqaaqayaa waa damayaa waayo keligaa baa rabaa inaad dhaqaaqdid qof baa kula nool qof baa la rabaa inaad isfahantaan marka intaad keligaa iska dhaqaaqi lahayd waa inaad ku dadaasho horta qofkaan inaad fahantid gaariguna haddii saddexda hoose aadan kala garanaynin sida loo kala waxeeyo way adkaanaysaa sida aad ku kaxaysid gaariga wuxuu leeyahay qaboojiye bareeg iyo sheelare gabadhan kuu dhaxda ama mudanahani aad isku dhaxdaan si aad adigu isku fahantaan ama geerkiisa aad u bedeshid waa inaad qaboojiye isticmaashaa qaboojiyena waa hadalka wanaagsan qofkaani waxaad wax ka dhaadhacsii kartaa markuu hadalkaaga wanaagsan yahay hadduu ninku magaalada ka yimaado shaqo ka yimaado asoo kulul maskaxdaada ay wax ka guuxayaan aad rabtid qofka inaad kala hadashid way adkaanaysaa saa isku fahantaan qofku waa inuu u ogolaato horta inuu naso karo qofku waa inuu u ogolaataa inuu asigu waqtigiisa qaada karo haddii mudanaha uu magaalada inta ka yimaado guriga markuu yimaado guriga isdhex yaalla uu arko ama wax khaldan uu arko haddaad isla markii qofkii aad ku qaylisid si aad isku fahantaan way adkaanaysaa waayo waxaa laga yaabaa qofkani guriga isdhex yaalla waxbaa ku kalifaya inuu guriga isdhex yaallo waa inaad bartaa waa inaad darisiin kartaa waa inaad qofka weydii kartaa waxa uu tabanayo haddii uu qofku waxba tabanaynin waa inaad tiraahdaa saan sibaa dhaanta sibaa ka qurux badan hadalkaaga uu qurux badnaa karo waayo marka hadalkaaga uu qabow yahay qofka kalena wuu baranayaa gaariguna haddaad qaboojiyaha isticmaalin marshada ma geli kartid mana bedeli kartid haddii aad mar walba leebaraha iskaga dhigaysid waxaa laga yaabaa shil inaad la gashay ama derbi ku dhufatid haddii qofkaana adoo kulul mar walba hadal kulul aad ku dhahaysid way kasii daraysaa ama wuu kasii darayaa si isfahanku uu bato waxa aad ku dadaashaan inaad wada hadli kartaan inaad waqti isa sii kartaan inaad xilli wada hadli kartaan xilligaasi uu guriga cidlo yahay oo aad weji ka weji isku hor fadhiisan kartaan marka wada hadashaan qofkaani maskaxdiisa waxa aad sheegaysaa ka dhacayso laakiin haddaad midka kale uu ganuunac badan yahay qofkaani wax buu ka fikirayaa adiguna waa ganuunacaysaa qofkaani hadalkaaga dhan kuma socdo marka aad hadlayso dhan waxaad isleedahay qofkaani muu ku fahmo muxuu ku fahmaa adigii baa ganuunacaye laakiin waxa aad ku dadaashaa
inaa gunuunaca inta iska daysid qofkaani tiraada inaan kula hadlaa rabaa waxaasaan dareemayaa iga jaahil bixi ifahansii. markii aad waqti isku heshaan oo wada hadashaan waxaa sahlanaanaysa ama badanaya isfahankiina. gaarigana hore idinkugu dhaqaaqaya, guurkana hore idinkugu dhaqaaqaya, fahankiina wuu badanaya. laakiin haddii aadan garanaynin guurka sida markaasi loo hadlo, sida dhibaatadaada loo sheegto, sida waxa aad tabanaysa looga hadlo, mar walba aad maskaxda iskaga haysanaysid, dhibaatadaasi way aruuraysaa. marka dambena waxaa soo istaagaysaa ama furiin baa rabaa, ama wiilka wuxuu soo istaagayaa inuu is yiraahdo qofkan qof dhaama raadi. si aysan taasi u dhicin oo qofkaagu gooni kuugu ahaado, waxa aad barataa degnaanshaha, hadal qabowga, wax sheegidda iyo ka fekeridda wax dan idii ah. badanaa labada qof ee lamaanaha qof walbaba waxa uu ka fekeraa waxa markaasi ku taagan. haddii aad waxa kuugu taagan kaliya mar walba ka fekeraysid, wax inay ku hagaagaan way adkaanaysaa. qofkaani waa bini aadan, garab ayuu u baahan yahay. waxa laysku guursadana waxa ay tahay midkiin midka kale inuu garab siiyo. qofkaani famil buu leeyahay, asxaab buu leeyahay, meel ayuu ka shaqeeyaa, intaba dhibaato ayuu kala soo kulmi karaa. halka meeluu ku nafisi karo waa gurigiisa markuu nafisaad usoo doonto, haddii aad adigu dhibaato kale sii abuuraysid, way adkaanaysaa gurigaasi inuu ku nagaado ama uu ahaado guri oo farxad geliya. sidaas lamid ah gabadhu fikir bay leedahay, waxay inay jeceshahay gurigeeda guri qurux badan inuu noqdo, waxayna rataa in marwo lagu daydo noqoto, iyadoo fikirkaasi ay niyaddeeda ku jirto. haddii hadalkaagu uusan qurux badnayn, sida aad loo dhaqmaysa aysan qurux badnayn, gabadhaasi waxay noqonaysaa gabar maskaxda ka liidata, ciishoota. si taasi u dhicin, mar walbaba si xiriirkiina iyo isfahankiina uu u bato, wax sheegiina ha bato. dad badan waxaa jira marka wax loo sheega dhibsanaya, laakiin wax sheegu waa wanaag. laakiin waxaa jira wax sheeg ka badbadis ah oo aad qofku ku ciilciilaysid. wax sheegu ha noqdo wax sheeg wanaag ah. haddii awlaad ay timaado, waxaan ku xasuusinayaa wiilka inuu ka fekerayo inuu aabbo noqonayo. gabadhuna waxaa laga yaabaa inay ka fekerayso haddii ay markaasi uur leedahay, dhibaato badan inay ka fekerayso, xanuunka waxa dhici doona inay ka fekerayso. si taasi aysan macnaha dee carqalad idinkugu noqon, gabaday adiga waxaad u tixgelisaa ninkan inuu ku fekerayo aabba inuu noqdo inay la weyn tahay. adiguna wiilo waxa aad gabadhaani ku tixgelisaa xanuunka ay ka baqayso iyo waxa ay dareemi doonto. si taasi aysan u dhicin, mar walba waxa aad ku dadaashaa ama u muujisaa inaad garab sii kartid, inaad ag taagan tahay. haddii hadalkeeda uu xun yahay, waxa aad qiimaysaa xaaladda ay ku sugan tahay. qofka xanuunsan keliya baa hadalkiisa xumaada. maanta haddaa aragtid qof hadalkiisa xun yahay, awalna hadalkiisa aanan xumaa jirin, waxa aad ku dadaashaa waxa qofkaani bedelay. xanuun baa bedeli kara, dhibaato aad adigu wadid baa bedeli karta. marka aad aragtid inaad adigu dhibaato wadid, dhibaatadaasi qofka ka yaray haddaad u baahan tahay ama aad nolosha ratid inaad la sii wadaagtid. haddaad dareentid inuu qofkaani xanuunsan yahay, xanuun dareemayo, dhankuu doono ha noqdo, waxa aad ku dadaashaa in qofkaasi aad garab ka siisid in xanuunkaasi uu dhaafi doono, in macnaha dee aad ag taagan tahay. qofkaani hadduu xataa caafimaado, weligiis qalbigiisa kama bixaysid, waayo xilliga uu xanuunsanaabaad garab istaagsanayd. carruur hadday idii joogto, isku meel aad ku nooshihiin, haddii mar walba aad buuqaysaan ama aad isqabanaysaan, carruurtu dhegaha ayaa u taagan, waxaana way maqlayaan. waxaa laga yaabaa cunuga waxa aad aabbe kula hadlaysa ama aabbe wuxuu hooyo kula hadlaya inuu maqlo, kadibna hooyo uu kula hadlo, ama aabbo uu kula hadlo, ama dadka kale ee meesha jooga uu kula hadlo. reerkuna wuxuu noqonayaa reer maanta dhan hadalla xunle lagu hadlayo. si ay taasi u dhicin, koley waqtiyadu way isbedelayaan. haddii guur la yiraahdana, waxaa fiican adigu inaad mar walba ka fikirtid guurkaaga ha ka duunaado guurarkii hore, dadka hore isoo guursanayay. waayo qofku waa inuu isbedel sameyn karaa, waa inuu albaxnimo sameyn karaa, waa inuu wax ka duwan keeni karaa nolosha. laakiin haddii aad ku jirto keliya heblaayo ama hebel waxay kusoo jiri jireen, waa iska caado, waa iska wax macnaha dee hore u dhici jira. haddaad mar walba ku qufulan tahay, maskaxdaadu nolol hore bay ku jirtaa. waa inaad nolol ka duwan noloshii hore aad keeni kartaa, farxad ka duwan, muuqaal ka duwan, si farxadaadu ay u saacido. waxyaabaha loo guursado maaha waan guursada in la yiraahdo, waa in qofku uu dareemi karaa nafisaad, farxad iyo jawi ka duwan jawigii hore oo ku noolaa dhalinyarinimada. tan ugu badan ee reeraha ama soo dhaxgasha waxay tahay waa la dhahayay. qofku bila aadanka qof facay intuu ku yimaado ama qof ka weyn intuu ku yimaado ku yiraahdo saasa la dhahaya ama saasaan arkay, waxa ka wanaagsan labadan indhood waxa aad u leedahay, dhagahana aad u leedahay, waxa ay tahay adigu inaad wax gooni u arki kartid, goonin u maqli kartid. weli maada arag dhagal iska deensanayo, qofku dhahay dhagtaada idib wax baan kusoo dhageysanayaa maada arag.
weli ma aad arag indha la iska dinsanayo oo ku dhahaya wax baan kusoo arkayaa iidib. dhagahan iyo indhahan goonida ah waxaad u leedahay inaad waxa aad ku aragtid ay macallin ku ahaadaan. waa la yiridaane waxa ay burburiyaan hankaaga, fikirkaaga iyo mustaqbalkaaga. waa lagu arkay waa la sheegayane adigii bay ku liidayaan ma ahane wax hore kuu qaadaya ma aha. mar walbana waa inaad taqaanaa waxa adiga markaasi shakhsiyadaadu ku hagaya. haddayse waxba ku hagaynin ay dadka kale ku hagayaan, dhibaato waa la noolaanaysaa, fikir waa la noolaanaysaa, buuq waa la noolaanaysaa, walwal iyo murugana waa la noolaanaysaa. mar walbana waxa aad ku jiraysaa inaad raadisid wax adiga markaasi ku farxad geliya. farxadda ugu dhow qofku waxa uu helaa markuu asiga isbarto, markuu asiga wax walbaba go'aanka naftiisa ay ka imaanayso. laakiin haddii qof intuu kuu yimaado saan samey uu ku dhahayo, waxaa noqonaysaa qof kale ku tiirsan. qof kale ku tiirsan marka aad noqotini, mar walbana waxaa noqonaysaa qof ra'yi suga, tala suga. waxaad ku dadaashaa si guurka uu kugu qurux badnaado. haddii aad maanta guur ku jirtid, inaad adigu qofkani u sheegi kartid waxa dhibaatadaadu tahay, inaad bare kartid waxa kaa qaldan, waxa kaa saxsan, waxa u baahan tahay iyo waxa ku farxad gelinaya. nolosha dadka guuleystay ama guurka ku guuleystay waxa ugu badan kuwa naftooda go'aan ka qaata, naftooda waxa dhibaya og, naftooda waxa u dan ah garanaya. haddii ay dhibaato dareemaana qofka ku dhigi kara dhibaatadaas ayaan dareemayaa, xalkeeda ayaan u baahanahay, goormeen ka wada hadalnaa. qofku haddii uu hadalkaaga ka dhuudhuunto, qofkaasi waa inaad jaanis badan siisaa, ilaa 3 mar 4 mar. kadib markaasi go'aanka naftaada ayuu u taalaa, wixii markaasi kula habboon baad ku dhaqaaqaysaa. laakiin qof aadan la hadlin, qof aadan waxba u sheegin, haddii aad afka u buurtid way adkaanaysaa sida uu kugu fahmo. waa saaxiibka Shaahid Bisaani. fiidiyogan haddaa ka heshay asxaabtaada la wadaag. meel walba aad dunida ka joogtaan, Allah idinku xifdiyo. assalaamu calaykum.